warar iskhilaafsan ayaa ka imaanaya deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana la sheegayaa in ciidamadii deegaanka iyo kuwa dowladda ee halkaas ku sugnaa ay isaga soo baxeen ilaa iyo haddana aanan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysa iyadoona saraakiisha ay sheegayaan in xeelad military ay kaga soo baxeen Ceel Cali Axmed. dadka deegaanka ayaa tilmaamaya in saaka ay arkayeen ciidamadii deegaanka iyo kuwa militariga Soomaaliya oo banaanka uga baxaya deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana xiriiriya saddexda gobol ee Shabeellaha Dhexe, Hiiraan iyo Galgaduud oo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabelle. sidoo kale xogaha ayaa sheegaya in ciidamadu ay u soo rooqansadeen mid ka mid ah deegaanada kale ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee Hirshabelle, si gaar ah Al-Kawsar oo ka mid ah deegaanadii inta badan ay ka dhaceen dagaalada xoogana. Ceel Cali Axmed maalmo ka hor waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo la isku adeegsaday hub leh noocyo kala duwan, ugu horreynna qaraxyo ku bilowday kuwaasi oo ay fuliyeen dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab. waxaase maanta la sheegayaa in kaabiga ay ku hayaan deegaankaas Ceel Cali Axmed, iyadoona wararka qaar ay sheegayaan inay gudaha u galeen deegaanka. sidoo kale xogaha ayaa intaasi ku sii daraya in ciidamada militariga Soomaaliya ay dib isu abaabulayaan iyo kuwa deegaanka oo ay doonayaan inay dib u qabsadaan deegaankaas Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe. lama oga ilaa iyo hadda sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in ciidamadan ay isaga soo baxaan deegaankaasi oo ay ka dhaceen dagaaladii ugu xooganaa, ku dhawaadna ay ku geeriyoodeen sida ay dowladdu sheegtay ilaa iyo 100 ruux oo Al-Shabaab ka tirsanaa, halka ciidamadii deegaanka ee halkaas ku sugnaana ay uga geeriyoodeen ku dhawaad 13 ruux.